يو ده هذا ما حسب خلافك حسب هيستند جدا. Why you do me like Joanna? Joanna. Why you do me like Joanna? What up, my best beautiful people? How you guys doing? Another beautiful day. Yes, it is people, my beautiful people. هذا بقى معلمي هيدن بقى مستعمل هيدن بقى سوي بحي خلاف كاسود عيوب لما نقدر نروح فنانين ولا عليه كو أمريكان كوب لو مروان يو ده هذا ما حسب خلافك حسب هيستند جدا. markaad ila jirtid adduunka gaalooy amaan afku jooji maayo baby jacaylkugu waayo maayo maxaneey jikaarkugu hurgi maayo mailo bum aysa saddex birikoor bay soo taalay maalinkii soo baxday maalin ku xigtaa rajeynaya inuu dayacdo loo shaxnaaqay oo beeshkiisu kusoo qoray hadalkan oo ah hees 9 bil ka hor abwaan isiiyey anigoo boorama joogo ee videogeedaba lasoo wado habeen dambe ayaan caawi YouTube ka arkay fanaan qaadaya fanaaniinta yaryar ababina fanaaniinta yaryar isaga fududeysanayo heesaha ayna ogeyn asalkooda xaggay ka imaadeen ha ka fiirsadaana kamisun videogeeda oo weliba si la yaab leh loo soo duubay waana ta cadeynteedu abwaanka leh dhex taagan yahay. Okay, waa weyn meesha waxaad ku jirto fanaaniintan yaryar hortana yorshe hadalkaas buu kusoo qoray beejkiisu. haddaba aniga markaan fikirkayga ka dhiibto yaryar inaad ka daysid baasho way ku qurux badnaaleed maadaama aad tihiin dad walaale ah haddana fanaaniin aad isla tihiin oo qaladka oosan adiga ahayn qaladka adigana kaa socdo asigana ka socdo abwaanka ka socdo marka waxaa qurux badan yaryar marka la isleeyahay ereyga yaryarna la isticmaalaya tanoo kale looma isticmaalo ee waxaa loo isticmaali karaa qofka markuu kaa yaryahay ninka maanta waa isla egtihiin at the same time ne dee haddaad u isticmaalaysa yaryar qaabka inaa xoogaa fanka la isaga soo reeyay waxaa jirto waxa la dhahaya haybad oo ilaahay bixiyo haybadaasne ma qusayso da iyo qurux ama qaab ee waxay ku xiran tahay haybad ilaahay ku siiyo talent ma leedahay maantana saa u jeed number 1 actually waa fanaan ay bulshada jecesho asna haybad ilaahay siiyo talent leh dayaxdal rushada sidoo kale ee waxa qurux badan laakiin dayaxu inaad u isticmaasho erey qurux badan intaad yaryar meesha soo geli lahayd kow aan ka gudubno aan ku leeytaba waa ii sameeyeen dad walaalahay waay laakiin waxaa daran afxumada in la isku isticmaalo qofka asigoo talent iyo cod wanaagsan la dhaho wax yar baa tahay niyo. Anyway guys, dayax markuu ereyga hadalka soo qoray Marwan waxba kuma soo qorin page-kiisu aniga markaan fiiriyay page-kiisana 3 bilood ka hor buu page-kiisu Marwan heesti erayadeeda saa u jeedan oo ku soo qoray July 12keedii adoo tana ii ahaaday haween ku agjooji maayado jawi xashaqoonay marnaba ku jikaari maayo hooyado tana ii ahaaday haween ku agjooji maayado jawi xashaqoonay marnaba ku jikaari maayo. haddaba abwaankii heesta qoray ayaan fiirinay wuxuu ka soo yiri asigana abwaankii baa page-kiisu wuxuu ku soo qoray heesta jawi caashaq waa mid oo Marwan ereyadii aniga oo ah Xamse Xadaari abwaanka magaciisa markaan isha waa Xamse Xadaari laxankii Sharmarke Buule Nabil Buule music Ahmed Weli Ibrahim Furunle codka Marwan Yare farsamadii Haatif Cabdi sawjeetin abwaankii baa ku soo qoray page-kiisa dan warshana wuxuu yiri abwaan baa cadeyn oo video ka dhex taagan wow wala guud cadeyn sheekada markii say idinkaga muuqato dan warshana dhinac baa loola soo heshiiyey Marwana dhinac baa loola soo heshiiyey yaa dadka isku diraayo labadan nin oo dhalinyarada walaalaha yaa isku diraayo waa abwaanka obviously marka fiirsan ee si aan dambe malmahan socdo badankood marka fiirsan maxay la xun yihiin
محو فنان قفنا فنان أي فنان أنو قنايا ما في رسالة بس أبوانك أنتوا طلعشوا أبوانك وأنتوا طلعشوا marka day cadan wuxuu lagu dilo waxa ila taaniga money talks bullshit walks meesha tan baa shaqeynayso my brother I'm very sorry about that laakiin runta marka ka hadlo tan baa shaqeynayso abwaanki baani intuu u duleeshaa adoo dhiil kula galay laga yaabay inuu aad isku fahmi weysay ama aad wax u garan weysay oo ninkan uu soo sheegay oo ninkan dhiil la galay oo ninkan qaatay markii dambe ma fahantay marka ayadoo la iska qabsan wax baash ku qurux badan tahay dad walaanan la leeyahay in aad meesha ku jirtaan oo abwaanka eeda saartaan adigana dayaxo ninkan wuxuu kugu dila pointiye horta social media waxba kama soo sheegin heestin uu soo bandhigay ninkan social media waxba kama soo sheegin kuma soo jawaabin kulama uusan murmin afkiisi la hada uu gaabaya adiga soo orday heestii ba heesti kala soo qaatay heesti kala soo qaadana waa tanaa adoo janay haade haween ku agjoojin maayado jawi caashaq doonay marnaba ku jikaari maayo saaragteen heesti kala soo qaado waa kana dayaxa marka waxaan siinaynaa taageeraha bal labada hees isku kumbeergareey mid baqurxan u codaya adiga ani kulay tabu san arko dayax pointigaas waa hoos isugu dhigtay runta markaan ka hadlo pointigaas hoos isugu dhigtay taasoo ah ina hal hees aad ka xanaaqdo ka murtido aad inuu nin walaalka inuu aad xogaa iskugu dhacdaan walaal qurux badan abwaankii joogo inuu idin kala hadlo because adina ma qoran heesto asigana ma qoran abwaanka qoray abwaanka the use oo labadiinaba madax iskingili marka waxay ku qurux badnaan lahayd in taad marwaan toos soo aadi lahayd inaad abwaanka qabsatid لأنك سابح مقدر واتكتر نيو وامحي ووجي بانته أنا وجي اللي استمعنا نكاس نقول جالو استمعنا ساعة مركا تاس مرك بعدام يسعويس وحاسميس إن هستي أو بنانك تعلي أو قرش قلي أو لصوص صاري أو already تضمكن مياه كل واد دعوتي إن عاد أدينا حناقضوه متك لصوص صارت actually أديهم بقرش إسقلي already هست بنانك تعلى قرش إسقلي رئيس كده عز باللعبي بعيش أنا ساسكم مقروح بدنا مركا حن إلى قروح بدنا لبناء أبوانك قبستي so حنا قياس عيا تاجرها إني أيها قوان ليه هنا هي أنا سوق لا قدين دونا مروان هو نمر عليك لا يعني هو نمر عليك لكن أنا جاي دو حصار عيا أبوانك so I hope you guys like the video فكرك إنه نهاس يوسف ديبو إن شاء الله أو we will see حاجة ماشي كلها مع ضد إلا part 2 part 3 وأسيب ولا so see you the next